xukuumadda Soomaaliland ayaa go'aan cad ka soo saartay hay'adda goobaha caafimaadka ay baahiyaan warbaahinta maxalliga iyo dawladda iyo madaxa bannaan waxa sidaas sheegay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland mudane Salebaan Ciise Xagle Toosiye uu ku weerinayo wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane Ismaan Cabdilaahi Cadaani go'aankani ka soo yeeraya xukuumadda Soomaaliland ayaa ku soo beegmaya xilli ay warbaahinta madaxa bannaan ay ku sii badanayso caasimadda Soomaaliland iyo gobolladeedaba خطر كوه مواد كجمهورية الصوماليلان أي كبحان ورباهنتا جمهورية الصوماليلان هدي تيفي تهي هدي شرايط كتاي يدو تال لقى دوليو والله يلعلنا يو مواد كعافمات كجمهورية الصوماليلان وليه هاي وحنو لنا هاي ما أنت وحي كدم بيا وبش ديسمبر يلا واتن تاي لبكون يلحي طبنكا بش ديسمبر يلا طبن تاي لبكون يلحي طبنكا وحلا وح عافمات وحلا وحيسيسه oo ka bixi kara warbaahinta ka howlgasho Jamhuuriyadda Soomaaliland inaanay jirin cidii u hoggaansamay weeyda arrinka waxay mudan doonaan ganaax 5,000 ilaa 10,000 oo dollar ama iyadoo laga xidho mihnada uu ku shaqeynayo haday TV tahay ama haday jariida tahay ama haday website tahay mar labaad waxaan leenahay anagoo u adeegayna wasiirkana aan ugu mahadnaqayo hawshaas uu marka hore waxaan ku raadayay soo gudbiyay maanta wiigan uu nagala hadlay sidii loo horgelin lahaa hadaan hay wasiirkii ay hoos imanayeen warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo haduu gudaha joogo iyo haduu dibadda ka howlgalaba maanta laga bilaabo December ay bisha 10keeda tahay waxaanu ka howlgalaynaa sidii aanu u fulin lahayn maxaan ku raadiyay digrootooyinka wasaaradda caafimaadka ka timi iyo taan anigu saaka qoray maxaan ku raahdaa amar dawladeed weey codsi maaha waa amar dawladeed xeer ilaaliyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gariiqaanka qaranka iyo gudoomiyaha maxkamadda sare waanu gaarsiinaynaa wareegtadaas xagga wasaaradda marka la eego tafatirahi iyo agaasimihii idaacadda iyo khadar cakulooyinka halkan jooga oo isna maareeyaha TV-ga cusub intuba amar cad bay qabaan maxaan ku raahdaa laga bilaabo maanta laga bilaabo wax soo maxaan ku raahdaa ka baxaya barnaamijyada ma jira oo noocaas oo maxaan ku raahdaa waan ruqsad haysan jiri maaya qoliyaha kale shirkadaha gaarka u leena waxaanu ka filaynaa oo aanu ku amreynaa in maxaan ku raahdaa iyagoo u daneynaya muwaadinka Jamhuuriyadda Soomaaliland midaynu isla fahanno waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye ka jaamacadaha ka soo baxay PhD holderka ayaan dawooyinka qaarkood uga garanayn wax la waxay yihiin iska daa islaan reebiye ama islaan ama oday weyn oo wax la iskuul ba aan gelin oo maanta maxaan ku raahdaa dalkeena jooga kuwa jaamacadaha ka soo baxay PhD holderska ayaan garan karin hadaanu hubin wax midda kale adduunka oo dhan hay'adaas way jiraan beenti laakiin lama ogolo TV-yada kama baxaan iyo jaraa'idka maxaan ku raahdaa ummaddu ay leeyihiin teamkaasi waxay tagayaan meesha uu ku haysto shirkadda waa la soo eegayaa dhaqaatiirta la soo baarayaa qualificationskooda dhan baa la soo eegayaa marka la arko wuxuu sheegayaa inuu yahay run ruqsad baan soo siinana ruqsaddaas ay ula imanayaan marka wasaaradda warfaafinta sidaas loogu ogolaanayaa in uu baxo xayeysiiskaas kii aanu aragno in uu yahay beenaale tuuga oo doonaya dadka inuu baadho waanu soo taaganaa idin soo gaari maayo waxa weeye wasiirka waanu mahad celinayaa runtii aanu mar hore wareegti soo saaray sanadkii 2014 baan soo saaray warbaahintu way u hoggaansami weyday haddana sanadkan aan markale ku celiyay wasiirku habeen dhowey waxaan maray 3 habeen ka hor ayuu ila soo hadlay markaasuu yiri war wasiir xayeysiisyadan khariban ee baxaya waxaynu joojinaa waxaan ku wasiir wareegtadeedii baan ku soo gaarin ima soo gaarin buu waan hubaa inuu markaa daawanayay xayeysiis xun oo caafimaad aad baan uga mahad celinayaa saaka wanaga isu nimid isaga runtii codsaday inaanu isu nimaadno aanu qabanno
hal shir jaraa'id oo isku mid ah wareegtadiina waa kaas uu saxeexay waxaan filayaa in ay tani noqon doonto markii u dambeysay ee nidaamkan aynu fulino waxaan ka codsanayaa tviyada gaarka loo leeyahay iyo joornaalada gaarka loo leeyahay shirkadaha isgaarsiinta inaanay eegin lacag ay ka qaadanayaan xayeysiiska ee ay eegaan oo daneeyaan caafimaadka bulshada oo adigu aad ka mid tahay inaadan ka qayb noqon khiyaamada la khiyaamaynayo dadkaaga inaydan sii dayn xayeysiis aan sharci ahayn oo soo marin wasaaradda caafimaadka sidaa wasiirku sheegay ciddii u hoggaansami weyda maxkamad baanu la tiigsanaynaa shirkadday doontaba ha ahaato waan hubaata dawliga ah in wareegtadaad maanta markuu wasiirku saxeexo aanay dib uga baxaynin laakiin codsigana wuxuu ku socdaa kuwa gaarka loo leeyahay wasiirkuna uu isna carab ku dhuftay ka codsaday ganaaxaasaan ku dhufan doonaa maxkamadna waa la tegi doonaa waxaanu ku safayn doonaa dee inuu yahay qof aan dan ka lahayn shacabkiisa aada iyo aad baad u mahadsan tihiin wasiirka warfaafinta Somaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani oo wax laga weydiiyay ogeysiisyada iyo xayeysiisyada ay baahiyaan shirkadaha telefoonadu ayaa ku jawaabay sida tan horta shirkadaha isgaarsiintii horta dee warbaahin ma isgaarsiin baa loogu talagalo waxay laysanka ku haystaan waxa weeye waa telephone systems marka markeedu hore sharci darraba ay tahay warbaahintu inay ku baahiyaan ama hadday Somtel tahay ama hadday Telesom tahay ama hadday mid kale isgaarsiina tahay maxaan ku dhahdaa xayeysiis noocaas oo warbaahineeda hore waan uga hadalnay imankan waan ku amrayna waxa weeye shaqadooda maaha hawshooda maaha waxa weeye sharcigii ay ruqsadda ku qaadeen bay jibinayaan haddii ay maxaan ku dhahdaa ay warbaahinta tagaan shirkadaha u furande iyo jaraa'id baa u furan xayeysiinta marka iyagoo lacagtii ummadda sida kale jeebkoodii ugala soo baxay oo waxba reebin hadday intii yareeda barwaahintana ku soo darsadaan de waxaan leenahay war deer hal ahaada ma meena doorta ya horta dhinaca kalena mar wax laga weydiiyay wasiirka caafimaadka Somaliland Saleebaan Ciise Axmed Kaar Xagle toosiye goobaha cilaajyada ee lagu dabiibo dadka waxa uu ka yiri sida tan cilaajyaduna waxay ka mid yihiin dhibaatooyinka waaweyn ee wasaarad ahaan aanu wajahno dhibaatooyin baana jira Rome was not built in a day waad garanaysaan meeshii laga soo kacay iyo meesha la marayo waynu soconaa maalinba waxbaa la qabanayaa waxa weeye ma hayno imika awood mental institutions dalka oo dhan ka fargareeya aan ku sameeyno waad ogtihiin dhaqaalihiinu waa dal baynu nahay yar oo la aqoonsanayn cilaajyada assessment-ka nimankaan sheegaya ku jiraan waxaan ka rabnaa dhammaantood in la asasgareeyo ma wada xidhi karno waayo qofkii markaad ka xidho meelihii uu qofkiisa xanuunsanaya geynayay dee wuu ku imanayaa adaa iga xidhaya meeligii buu ku leeyahay waxa weeye waanu yaraynaynaa waanu controlaynaa criterian u samaynaynaa quraanku wuu fiican yahay waana lagu bugsadaa qofkii ilaahay ku daweynay idagayso taasi waa arrin kale oo qofkiisu intuu qabsado waalo dee wasaaraddu shaqo kuma leedahay